guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Caarada boorka waa geedo aan lahayn caleen, ubax ama midab cagaaran oo la heli karo inta lagu jiro sanadka oo dhan. Wuxuu ka baxaa meelaha bannaanka ee jawiga diiran, hawo qoyaan leh ama uumo biyood ku jira. Inta badan wuxuu ku koraa meelaha qoyaanka hawada ama huurka ka yimaada, sida caleenta qoyan hoostooda ama cawska go'an. Laakiin sidoo kale, caarada boorka gurigaaga dhexdiisa ayay ku kori kartaa. Waxay ku kortaa meelaha qoyaanka hawada ama huurka ka yimaada, sida qaybta hoose ee gurigaaga ama meelaha qubeyska ama meelaha biyaha ay ka taslaan. Waxay ku kori kartaa warqadda, baakada, mutuneelaha, alwaaxa iyo alwaaxda. Caarada boorka waxay ku kortaa busta, rinji derbiga, biyo-reebka, derbiga qalalan, katiifadda iyo saabaanka. Sidoo kale waxay ku kori kartaa qoyaanka dharka iyo meelaha qoyaanka hawada ama huurka ka yimaada. Caarada boorka waxaa laga yaabaa inay u eg tahay meel bar ah, oo waxay noqon kartaa wax madow ama cagaar ama midabo kala duwan. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay urto. Marmarka qaarkood caarada boorka in aadan arag ama urin, laakiin weli waxay ku koraysaa meelaha qoyaanka hawada ama huurka ka yimaada. Waxaa kugu dhici kara caafimaad darro kaaga timaada caarada boorka oo gurigaaga dhexdiisa ku dhalanaysa. Caarada boorka dadka qaarkood waxay ku ridaa diif, qufac ama qufac hinraaga, dhuun xanuun, indho balbal ama nabro yaryar oo maqaarka ka soo baxa. Dadka kale ee xasaasiyadda ku qaba caarada boorka waxaa dhici kara inay u keento dhibaato neefsasho ama qandho. Dadka qaba neefta waxaa dhici karta inay dhibaato aad u weyn ay uga timaado dhanka neefsashada. Oo dadka qaar ee qaba sanbab xanuunka ama nidaamka difaaca jirkooda uu khafiifka yahay, xataa waxaa ku dhici kara caabuq gudaha sanbabkooda. Waxaad ka joojin kartaa in gurigaaga caarada boorka aad ka joojiso inuu ku koro adiga oo gurigaaga qalajinaya. Marka aad dharka dhaqaysid ama cunto aad karinaysid, isticmaal oo shid hawo bixiyaha. Marka aad sidan samayso, qoyaanka kushiinka bannaanka ayuu u baxayaa. Hawo bixiyaha shid ama fur daaqadda marka aad musqusha ku jirto si qoyaanka u baxo. Musqusha inta badan isaga dhaq walxaha musqusha lagu nadiifiyo ee boorka tirtira. Meelaha biyaha ka taslayaan si dhaqso ah u sameeya. Haddii aad aragto rinji oo soo buuranaya ama soo fuqaya, biyaha soo taslaya iska samee, kadibna rinjiye. Derbiga caarada boorka leh ama qoyaan korkeeda ha rinjiyeyn. Waxaa muhiim ah inaad nadiifiso wixii caarad boor ah ee gurigaaga ku koraya. Daaqadaha iyo albaabada iska sii qolka u soo gasho hawo cusub. Gasho gacno gashiga biyaha aan soo galin iyo wax indhaha aad isaga ilaaliso. Si caarada boorka isaga nadiifo, hal koob oo warankiilo ah ku dar hal gaaloon oo biyo ah, ama waxaad isticmaali kartaa saabuun iyo biyo si caarada boorka aad uga nadiifiso meelaha sagxadda iyo derbiyada. Haddii katiifad ama sabaan qoyanaa in ka badan 24 saacadood, sida iyada oo ay sababtay daad ama biyo badan oo soo fatahay, waxaa loo baahnaan doonaa in la iska tuuro. Waxay u badan tahay in caarada boorka uuba ku soo korayo, xitaa haddii aadan arki karin ama aadan urin karin. Katiifadda waxay u baahan tahay in la iska tuuro. Xasuusnow, dariiqa ugu wanaagsan ee la isaga joojiyay in guriga dhexdiisa
uu ku korin caarada boorka, waa in qoyaanka iska ilaalisaa. Gurigaaga qallayl ha kuu ahaado. Si dhaqso ah uga nadiifi haddii aad aragto caarada boorka oo gurigaaga ku koraya. Qoyskaaga ka badbaadi inay ku timaado dhibaato caafimaad darro oo ka dhalata caarada boorka ee gudaha. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.